wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa maanta qada sharafeed ugu sameeyay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa mas'uuliyiin ka socda shirkadda Al-Carabiya ee dalka Imaaraadka Carabta. Shirkaddan oo saldhigeedu yahay shaariqa dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa u yimid Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen maalgashi ay doonayaan inay ku sameystaan dalka Soomaaliland. wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah waxa uu sheegay shirkadda Al-Carabiya ee dalka Imaaraadka Carabta inay daneynayaan Soomaaliland inay ka maalgashadaan dhinacyada diyaaradaha, madaarada, hoteelada, dalxiiska iyo arrimo kale. maanta waxa dalka yimid koox ama wafdi maalqabeena ah oo investors oo maalgashi u yimid dalka oo ka socda shirkadda Al-Carabiya oo ah shirkad diyaaradaha oo kamid ah shirkadaha waaweyn ee diyaaradaha dalka Imaaraadka Carabta fadhigooduna yahay mantiqada Sharjah oo u yimid dalka in ay eegaan isla markaana ay dawladda Soomaaliland ay kala hadlaan dan xagga maalgashiga ah hawl xagga maalgashiga ah oo ay doonayaan inay ku dhisaan garoomada diyaaradaha ee dalka iyo hay'adaha duulimaadka ee dalka iyo dhinaca kale oo xagga hoteelada iyo dalxiiska marka waxa weeye maalgashi aad u ballaaran oo qaybo fara badan oo dalka ah diyaaradaha tahay duulimaadyada haday tahay dalxiiska haday tahay xagga hoteelada intaba daneynaya inay dalkan maalgashadaan oo maanta dalka yimid iminkan aan halkan qada sharaf aan ugu sameynay waxaana ay la hadli doonaan ay la shiri doonaan hay'adaha qaranka u qaabilsan hawlaha wasaaradda duulista iyo hawadu ay kamid tahay iyo hay'adaha kale xagga dalxiiska iyo guryaha iyo dhisidda guryaha ay kamid ka yihiin waxaan aad u rajeynaynaa in haddii wada hadallada lagu najaxo inaan markaa marino nidaamkii diiwaangelinta sharaa'iga iyo maalgashiga caalamiga ah dalku leeyahay gaar ahaan wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga si aanu dalka ugu soo dhaweyno uguna soo dabaallo dad fara badan ama sharaa'ig fara badan ama maalqabeeno badan oo daneynaya dalka waana siyaasadda ay u taagan tahay xafiiska maalgashiga iyo wasaaradda ganacsiga inaanu dalka dhaqaalihiisa ka qayb qaadano kobcintiisa dunidana u furo dalka marka booqashadan maanta shirkadda Al-Carabiya Airlines iyo hawlaheeda kale ee sharaa'ig kale la xiriira ay dalka ku yimaadeen waxay ka turjumaysaa in dalku u furan yahay baaxmushtar in dalku u furan yahay inay maalqabeennada shisheeyuhu dalkeena yimaadaan maalgashadaan si markaa shaqo abuur halkan uga dhaco oo dad fara badan oo reer Soomaaliland ay shaqo uga helaan dhaqaalaha dalkuna uu ku kabco isdhexgalka dalkeena iyo dalalka kalena ay kordhaan marka aad iyo aad baan waftiga u soo dhaweynaa uguna faraxsanahay maalmaha soo socdana waxay la shiri doonaan hay'adaha qaranka ee arrimaha u yimaadeen u xil saaran oo ay xagga farsamada iyo heshiisyada iyo arrimaha dakhliga u ah ay qaranka u qaabilsan ay ka gudub maalinta ka dambaysa ayay sii kordhayaan shirkadaha caalamiga ah ee daneynaya inay Jamhuuriyadda Soomaaliland maalgashi ku sameeyaan iyada oo toddobaadkan soo dhaafnay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliland uu heshiis maalgashi la saxday shirkad Mareykan oo daneynaysa in ay maalgashadaan khayraadka dabiiciga ah ee beeyada iyo xabkaha kale ee Soomaaliland ay hodanka ku tahay